Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada kanaalka Salmaan Cumar. Maanta muuqaalkeena waxaynu uga hadlaynaa shakhsiga ugu qanisan caalamka, Jeff Bezos. Intaan muuqaalka gudagalin, fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalka subscribe saar, gambaleelkan furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub aan soo geliyo. Tani waa xog kooban aynu kaaga warinayno mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu taajirsan caalamka. Maanta muuqaalkeena waxaynu uga hadlaynaa 5 xaqiiqo aadan ka ogeyn bilyaneerka adduunka Jeff Bezos. 1. Bezos wuxuu ka qalin jebiyay jaamacadda Princeton 1968. Waxa uu haystaa shahaadada injineernimo, korontada iyo sayniska. Waxa uu ka soo shaqeeyay Wall Street dhinacyo kala duwan oo laga bilaabo 1986 ilaa horaantii 1994. 2. Bezos wuxuu aasaasay shirkadda Amazon dabayaaqadii 1994. Shirkadda waxay ku bilaabatay sida dukaan buugaagta online-ka ah, waxayna tan iyo markaasi ku balaadhisay noocyo kala duwan oo badeeco iyo adeegyo kale oo ay ku jiraan maqal xisaabinta sirdoonka macmalka ah. Hadda waa shirkadda ugu weyn adduunka, shirkadda bixiyaha ugu weyn adduunka, iyada oo loo marayo laanteeda adeegyada shabakadda Amazon. 3. Bezos waxa uu aasaasay shirkad kale oo lagu magacaabo Blue Origin, taa oo sameysay duulimaadka hawada sare Origin. Waxa uu meel bannaan gaaray sanadkii 2015, kadibna si guul leh ayuu dhulka ugu soo degtay. Qaybaha Amazon waa 3 goobood oo wareegsan oo ka kooban qayb ka mid ah xarunta dhexe ee Amazon ee Washington, nashqadeeye NBBJ. Dhismahan ayaa u furmay shaqaalaha Amazon iyo gelitaanka dadweynaha ee xadidan 30 January 2018. Qaybaha waxaa inta badan loogu talagalay shaqaalaha Amazon, laakiin waxay u furan yihiin dadweynaha iyadoo loo marayo booqashooyinka xarumaha toddobaadlaha ah iyo bandhigga dabaqa hoose. 4. Bezos waa qofka labaad ee ugu taajirsan adduunka marka laga reebo Bloomberg's Billionaires Index, iyo qofka saddexaad ee ugu taajirsan marka loo eego Forbes. 5. Ahmiyadda waxbarasho waxaa lagu beeray Bezos ilaa yaraantiisa. Bezos waxaa dhashay hooyo keligeed ah, dhammaysatay dugsiga sare, kadibna u soo kaxaysatay markii ay gashay xiisadaha habeenkii. Markii uu soo koray, Bezos waxa uu dhiganayay dugsiyada dadweynaha ee Texas iyo Florida. Daawadayaal, waxaynu soo gaarnay gabagabada muuqaalka. Fadlan subscribe saar kanaalka si aanu soo badino muuqaalada noocan.